waxaan u sheegaynaa cadow kasta shacabka Puntland waa jira waana jiri doonaa maxaa danteen ka lahayn federaalka maxaan ka doonnay markii hore horta hadduu nin hal nin deegaan Soomaaliyeed ciriya dhul iyo bad baxirto yaa la xisaabtamaya yaa xaq u leh in la xisaabtamo dawladda hadduu nin Soomaaliyeed adeeg dawladda Soomaaliyeed ay siisay bulshadeeda u diido u hor istaago oo dhoola siin maayo adeeg waxbarasho adeeg caafimaad mashaariic horumarineed hadduu diido yaa la xisaabtamaya dawladda madaxweyne Xasan Sheekh see loo xaliyaa ishkaaliyadda ka jirta federalismka unity ama midnimadii doorkii shisheeyaha isla xisaabtankii alaabtaas la isugu qooshaa see la soo socodsiin karaa oo sidii Puntland ay noqon lahayd dal xasiloon oo jira waa problem jira aad u fogaan maayo waxaan rabaa inaan su'aalahaas aan hordhigo oo aan iraahdo meesha ay tahay cudurradu ka jiraan ama bulsho ahaan aan u fashilano anigu aan isleeyahay problem baa inaga haysta ama siyaasad ahaan siyaasiyiinteenu iyo dabaqadeena siyaasaddu ha fashilanto ama elite-keena Soomaaliga ha fashilmee meesha problemka inaga haysta su'aalahaas ay ku hoos duuban yihiin